dowladda Mareykanka ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah uga hadashay caaqil dhawaan lagu dilay gobolka Sanaag kaas oo lala beegsaday duqeymo ahaa 3 gantaal xilli uu safar ku marayay deegaanada gobolka Sanaag. qoraal dheer oo ka soo baxay maanta ciidamada Africom Mareykanka ayaa lagu sheegay in ay agagaarka magaalada Baran 13 bishan ay ku beegsadeen nin u iibin jiray kooxda al-shabaab hubka iyo sidoo kale saanada halkaasna ay ninkaasi iyagu ku beegsadeen iyaga oo kaashanaya dowladda federaalka Soomaaliya. dilka caaqilkan gobolka Sanaag ka soo jeeday ayaa muran aad u tiro badan dhaliyay isla markaasna waxa ka dhashay banaanbaxyo iyo kacdoon bulsho oo guud ahaan gobolka Sanaag iyo guud ahaan Puntland ba saameyn aad u weyn ku yeeshay iyadoo dadku ay dalbanayeen ama eheladiisa iyo dadka kale ay dalbanayeen in ay dowladda Puntland ay sheegto dilkaas iyo sidoo kale ciddii ka dambeysay balse dowladda Puntland ayaa gabi ahaanba ka aamustay dilkaas. maantana Mareykanka ayaa si rasmi ah u sheegay inuu dilka isagu geystay ninka dilka lagu geystayna uu ahaa nin hubka iyo saanada u iibin jiray kooxda al-shabaab ee ku dhumaalaysanaysa buraha calmadow ee gobolka Sanaag. ehelada caaqilka dhawaan lagu dilay gobolka Sanaag oo hadlay ayaa iyagu sheegay in caaqilku uu ahaa caaqil deegaanka ah uusan nimankaas wax gacan saar la lahayn waa kooxda al-shabaab sidoo kale waxa ay sheegeen inuu yahay caaqilku uu ahaa nin deegaanka aad looga jecel yahay. dhawaan sidoo kale caaqilka ayaa waxaan 3 bilood ka soo wareegin waxa uu kulan kula yeeshay aan dhahay madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani magaalada Boosaaso halkaas oo ay ka wada hadleen xaaladda gobolka Sanaag iyo sidoo kale sidii ay deegaanadaas waxa weeye dowladda Puntland iyo adeegyadeeda ay u gaari lahaayeen xilli maamulka waqooyi bari iyaguna ay ku loolamayeen in cuqaasha iyo sidoo kale nabadoonada ka soo jeeda gobolka Sanaag ay la wareegaaniin wixii warar ah oo ka soo kordho dheeraada halkan ayaan kula wadaagi doonaa.